saddex xiriir waa inoo muhiim meel walbo oon joogno. xiriirka koowaad waa xiriirka nagala dhexeeyo rabbigeen, mar walba inaan wanaajino salaadaheena xusitaanka ilaahay. allah subxaana watacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi fadkuruunii adkurkum. qur-aanku wuxuu ku yidhi subxaana watacaala walaa takunuu kaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum. marka mar walba inaan wanaajino xiriirka rabbigeen naga dhexeeyo anagoo weliba xuskiisa iyo waajibaadka ugu dhawaanayno. xiriirka labaad waa xiriirka naga dhexeeyo annaga iyo nafsadeena waxaa naga dhexeeya xiriirkaas marka waxaa la rabaa in uu wanaagsanaado. siduu ku wanaagsanaan karaa? nafsada in hadallo wanaagsan aan dhahno, hadallada macnaha isku dhexeeno inay hadallo wanaagsan ahaadaan. mararka qaar waxaa laga yaabaa in wax ay ka halaabaan ama arrimo inay ku qabsadaan. marka in nafsada dhahdo ana waa nasiib xumahay, waxa ma ii hagaagayaan, aniga adduunka layguma rabo, waxa macnaha hadallada negative ah inaad iska ilaalisid. waxaa la dhahaa qofka bini'aadanka ah wuxuu maalintii ku hadlaa in ka badan 10,000 oo hadal oo isku hadlaalin, 60% ka badan hadalladaas waa hadal negative ah. nafsadaada ayay saameyn weyn ku yeelanayaan, maskaxdaada ayay saameyn ku yeelanayaan. in nafsadeena xiriir wanaagsan naga dhexeeyo, inaan u dhimrino mararka qaar, sidoo kale inaan abaalmarino markii wax wanaagsan ay qabato, in la ciqaab la saaro haddii waxyaalaha ay u baahan tahay kale ay qaban weydo. marka xiriirka naga dhexeeyo nafsadeena anaka nafsadeena inay wanaagsanaato. hadal kasta oo nafsadeena aan ku dhehnayno waa inaan ka fiirsano, maadaama uu saameynayo maskaxdeena ay tahay waxa qaabeenayo oo bixinayo habdhaqankeena iyo sida aan u dhaqmayno. xiriirka saddexaad ahna xiriirka ugu xiisaha badan waa xiriirka ka dhexeeyo annaga iyo dadka. xiriirka naga dhexeeyo annaga iyo dadka, waalidkeen, qaraabada, saaxiibada noo dhow, dadka guud ahaan ila macaamileena. qof walba marka inaan ixtiraam siino oo dul qaadano oo wanaajino qof walba. nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anzil an-nasa manazilahum, dadka dhig boosaska ay leeyihiin, qof walba booskiisa inaan dhigno. السلام عليكم وما سنتين، جزاكم الله خير. واحدة في سودوادا وأنا جوا مسكين المسألة.